warniyo heedhe inanka in adeerkii cawaale aadan in adeer heedhe nafsigii waxa kusoo qabtay lixdii caruura iyo hooyadood eed kuwa cad furtay inkastoo misxiis batayna walaasheena oo aanu jecel daawada muuqaalka ordhiciisa ka soo aragtay waa fanaanka cawaale aadan walaashiisa oo sheegtay cawaale inuu nafsi haysto xaaskii hore uu furayayna nafsigeeda inuu ka soo baxay iyo todobadiisa ciyaal nafsigooda inuu ka soo baxay si aan kula wadaago fadlan nagu soo biiro asxaabteena ka mid noqo adigoo janaalka subscribe dhaanaya gambaleelkana u furanayo muuqaalkana laagta la dhacayo wixii fikirkaageena commentiga noola wadaag fanaanka cawaale aadan oo walaashiisa barta social media ka soo hadashay oo sheegtay cawaale aadan in walaalkeeda nafsi uu haysto nafsigaasina uu yahay xaaskiisa hore uu ugu soo tagay misxiis darteeda iyo todobadiisa ciyaal nafsigooda inuu ka soo baxay cawaalena nafsiga hadda haysta in uusan yareen ayay barta social media ka sheegtay muuqaalkeeda uu barta social media qabsaday iyo dad badan oo ra'yi ka dhiibtay iyo ayada oo sheegtay in walaalkeeda cawaale aadan nafsiga haysta uu yahay ciyaalkiisa iyo xaaskiisa in jacayl uu u qabo misxiis darteeda uu ugu soo tagay laakiin jacaylka uu qabay eed laba bari inuu ku soo dhamaaday jacaylkii la sheegay cawaale iyo misxiisna uu waqti yar ku soo dhamaaday hadda laakiin walaashiisa cawaale aadan oo afka furatay oo barta social media ka soo hadashay oo sheegtay walaalkeeda inuu nafsi haysto nafsigaasina uu yahay xaaskiisa hore oo jacayl oo indhaheeda ka jacayl inuu ka soo tagay ciyaalkiisa uu ugu soo tagay jacayl asiga uu u qabo misxiis darteeda naftuba naf bay rabtaa naftuna naf kale rabtaa waa hadalka ay Soomaalida leeyihiin haddana cawaale aadan nafsigii inuu ka soo baxay oo meel uu tagana uu laasan yahay ciyaalkiisa iyo xaaskiisana uu markii koob ugu soo tagay misxiis darteeda misxiisna ay arintii misxiis iyo cawaalana ay meel xun ay ku kala tageen sida dadka Soomaalida idil ay ka wada haayaan misxiis iyo ayadana iyo cawaalana arintooda furiin ay ku soo dhamaatay nafsigii cawaale aadan uu ka soo baxay ciyaalkiisii iyo xaaskiisii hore uu ka soo tagay jacayl uu u qabay misxiis darteeda arintaas oo idil oo hadda cawaale aadan walaashiisa oo ka soo hadashay walaalkeedana ku tiray nafsi ayaa ku haysto xaaskaaga ciyaalkaaga adigoo dhaqanaya ayaa ugu soo tagtay misxiis darteeda misxiisii adigana arintiina meesha tagtay waa aragteen iyo waxa aad ku kala tagteen arintaas oo social media aad u qabsatay daawade ayaan kula wadaagi doonaa fadlan soo dhawow muuqaal ayaan kula wadaagi doonaa daawade soo dhawow daawade warniyo heedhe inanka in adeerkii cawaale aadan in adeer heedhe nafsigii waxa kusoo qabtay lixdii caruura iyo hooyadood eed kuwa cad furtay inkastoo misxiis batayna walaasheena oo aanu jecel